waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madashan iyo kulankan aadka u qiimaha badan in aan ka soo qayb galo oo aan idagala soo qayb galo runtii waa ku faraxsanahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaana si gaara ugu mahad celinayaa ugu hambalyaynayaa ururka magaca quruxda badan samaysta oo taasama la yiraahdo xaqiiqatan maaragtaa magac wanaagsan wuxuu ka mid yahay ifafaalaha fiican moogta اللي قفك مقع في عنه هندسة شقف في عنه هندسي كرا سوساس ما لكن مقع ما هدوك آخر دمه يا وح كستوي كآخر دمه يعني مركا آد يا رونتي وجوهم بليينيا إن شيء تيفيسكا هالعبوركا وحي كمنتها هاي أسبابها أن قلبتها كان وحلر دونه أو اللي يرد أن كل رجلين دونه مد كمدا أي رنتي سهر ودعة أي أسي سميان إن شاء الله تعالى. وحان ربا إن رنتي وحد مدة حاجة وقت وسيبه ويري هاي لكن وحان رجينا يا إن سكوبا إن إذا لو داعو إن شاء الله تعالى برامج كماشة أوفر دان. حواك بحكوا سابسية طبعا وصلنا نقلنا أول ما لها صومها وكالنتا أي اللي يرد كليهين هاي نبدا iyo horumarka ay ku leeyihiin oo runtii ah kaalin aad iyo aad muhiim ah waxaan rabaa inaan wax yar ilaa marka dambe waxaan ka fikiray inaan dood xoogaay iyo su'aalaha inaan haday su'aalo jiraana inaan ka jawaabno oo waqtigu noo qaybsamo laakiin waxaan moodaa waqtigaana kulaalaya waxaan rabaa erayga inaan erab bixin yariisa aan seeno erayga dhalinyaro waa isla fahamsanaa rajaynaya sax leeyahay youth ka bilaabada shaqada ka bilaabata Soomaa dhalinyaro xagee ka bilaabataa ده أهان مركي اللي يراهدو إرجع لليرو عالميا أما قرمدا مدوبة أما United Nation كا وهو قبل الله عشان يتوان سنة أيوه قبل الله لكن حقوق وجيه يا سما أوكي وحاجة تسد حير أو إرجع لليرو ده قرمدا مدوبة أنت بالله به كرو كو وحال اللي ده عشان يتوان سنة إلى صدر يشان سنة وعد الليرو وحاكلوا الجالسية صدر يسجل سنة وحال جارسيا أفرتين سجال سنة أنت أسمع حالي كرا إن أي كجرا لليراد يأود مركز ضد بدن السوقلا يا هدي أفرتين سجال جارسيا أو أود بدن أي هوتي سوقلا يس أنت قفك أو أود بدن هاي إنرجي أو بدن أو هايو لليراد مركز اللي هذا internationally إيش كأمد ده أو بدن قرامة ميدوبا أيو تقانون لليراد وأنت لكن سيدا معروف كا أما أو عنسن وشن يتمن سنة إلى صدر سجال سنة أنت آدي رنتي معروفة وحن ربا اللي يرى مركل الجوجو أود الدنيا ده مركل لها الله الدنيا ده أود ده يا واحد يا واحد اللي يرى ده أود الدنيا ده واحد اللي يرى ده كالدنيا ده أقول بدن أقول ترى بدننا واحد اللي يرى وحل يرى الدنيا ده أنت كنال هاف كاد واحد اللي يرى الدنيا ده وحي جارتي هذا ترى ده 6 بليون ayaa ku nool soo 8 bilyan marka laba u qaybiso waa meeqo ya waa qiyaastii 4 bilyan oo qof ayaa dhalinyarada dunida ku nool ah which means waa tiro runtii aad iyo aad u badan 30 sano ka yar marka laga dago 15 sano ilaa 24 sano dhalinyarada u dhaxaysana waxa la yiraahdaa waxay matalaan 1.2 bilyan ay dunida ka yihiin waa number aad iyo aad runtii u badan marka la joogo dunida sidaas darteeda dhalinyaradu waa awood aan caadi ahayn waa is very very powerful haddii marka dhalinyarada aan laga faa'iideysan haddii aan la jihayn haddii meel sax awoodooda aysan ma aragtaa aysan ku jihaynin awoodoodu meel khaldan ay aadaysaa sidaas darteeda dhibaato fara badan ayaa ka imaanaysa dhalinyaranimada marka u soo dhaadhacno Soomaaliya oo wadankayna aan nimaado Yurubiyaanka ama madowga Yurub missionkiisa Soomaaliya waxay ku tilmaameen Soomaaliya dhalinyarada yani populationka ama tirada dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 75 in ay ka hooseyso 30 da'dooda inay ka hooseyso boqolkiiba meeqa waaye ya 75 laakiin nasiib darro 14 إلى يعني إلى لباتن إلى سجال سنة ذاتك دأدود ويودا حيسو شقة أنتو واللحدن إلى التضمو برسنتج مركل اللي هذا صو شقة أن ريت كشقة أن تبدأ اللي يرد الصوماليين هي ستوامقه بقول كيما يا لحدن إلى التضمو إيجو بولشة أي كدجينهين ما غي كدجينهين
toddobaatan iyo shan wax ka badan 75% arrintaas waxay keenaysaa alarmi iyo waxay shidaysaa in loo baahan yahay isbeddel ballaaran in lala yimaado isbeddelkaasna cid kale ma keenaysee waxaa laga rabaa nafteeda dhallinyarada nafteeda laga rabaa inay isbeddelka ay la yimaadaan anigu dadka aaminsan kuma jiro bannaanka ayaa wax ka imaanayaan waa inay gudaha wax ka yimaadaan ama ay sameeyaan sida aan hore u sheegnaba runtii xaqiiqatan dhallinyaradu waa awood aad iyo aad u ballaaran caalamka markii la joogana waa ballaaran yihiin Soomaaliya markii la joogana waa ballaaran yihiin waxaad ogtihiin taariikhda islaamka dadkii ugu muhiimsanaay ee diinta islaamka u nasriyay oo u gargaaray waxay ahaayeen dhalinyaro ay ahaayeen iyaga ayaa hogaamiyay isbeddelkii ummadeed ee 1400 sano ka hor dhacay iyaga ayaa runtii hoggaan u ahaay dad fara badan ayaa ka mid ah dadka hal iyo laba soo koobi karo dad iyagoo yar oo jira 20 sano 21 sano isbeddel ummadeed ayaa jira ninka la yiraahdo mesela hadaa ka soo qaybina Mus'ab bin Umayr ina taqaanaan rajaynaya oo ku shahiiday dagaalkii Uhud wuxuu ka mid ahay dadkii ugu horeeyay ama dhalinyaradii ugu horeysay Ali bin Abi Talib oo rasuulka rumaysa calayhi salaatu wasalaam isla markaasna diinta islaamka u soo gargaaray iyagoo yar yar waxaa ka mid ah Usama bin Zayd rasuulka inta uusan dhiman sallallahu alayhi wasallam ayaa rasuulku wuxuu u dhiibay inuu hogaamiyo jeyshkii ama ciidankii fura lahaay Rum ama qashina umaleeya xilliga laba awoodood ayaa adduunka ka jiray waa Furs iyo Rum marka Rum in ma aragtaa la jabiyo ama la sameeyo ayaa loo dhiiba Usama bin Zayd oo 20 sano jira kan imagine inta uu la akaydadiisa macnaha halkaan dhalinyarada fadhida camal ayuu ahay laakiin wuxuu sameeyay isbeddelka inta la eg oo aad iyo aad ka u ballaaran oo weyn ayuu runtii u banaynaya taariikhda islaamkana aad baa looga buuxaa waxaa laga yaabaa inaad maqasheen ninkii caanka ahay oo la yiraahdo Maxamed al-Faatix eraygaas inaad maqasheen aan rajaynaya 1453 ayuu wuxuu furtay mid ka mid ah magaalooyinka dunida ugu muhiimsan oo la yiraahdo Istanbul oo rasuulku horay uu sheegay calayhi salaatu wasalaam نعم الجيش جيشها ونعم الأمير هي أميرها إذن دلنيرد وقوة ضاربة وأود أن عادي أهي أو رمتي هدي الصحة ودقاقضة آدي آد الله وحينكره طبعا دلنيرد واسكو جيران دد وناكسن oo idinka oo kala ah oo wax baranaya oo halgamaya oo fikrado keenaya oo talooyin abuuraya iyo kuwa ku mashquulsan hay meelo kale ku mashquulsan laakiin aniga waxaan iraahdaa boqolkiiba 2 kaliya dhalinyarada iyo dadku hadii laga toosiyo ama boqolkiiba only 2% iyaga ayaa hogaamin kara inta kale wax weyn ma laakiin boqolkiiba 2 si sax u shaqeysa kaliya in la helo oo ma aan sameeyno ayaa asala oo aan rajaynayo insha Allah taala talasamo hagaag academy iyo dadka nalmada inaan sameyn doono are you ready diyaar waa u tihiin aan rajaynaya insha Allah taala